BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. halkaad wali nagala socota walanta afka Soomaaliga ee BBC-da imikana dalka Masar. dadka waddanka Masar ayaa maanta maalinkii labaad u codeynaya in ay soo doortaan madaxweyne cusub. doorasho socon doonta ilaa berito taasi oo ah tii saddexaad tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi Xusni Mubaarak sanadii 2011. loolanka ugu weyn waxa uu dhaxeeya Cabdifataax al-Siisi oo ah madaxweynaha imika talada haya iyo Musa Mustafa Musa oo isaguna la tartamaya. haddaba sidee u socotaa doorashada dalka Masar? su'aashaasi iyo su'aalo kale ayaa weydiiyay Cabdullaahi Axmed Qaalib oo ah saxafi ku sugan magaalada Qaahira. doorashadu waxay ka dhacday guud ahaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Masar oo ka kooban 27 gobol. waxa cod ka dhiibanaya sida ay sheegtay hay'adda doorashooyinka dalku 59,088,138 qof oo ka codeynaya 13,706 goobood. waxaa jira iyaguna kormeerayaal isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwa maxalli ah labadaba, kuwaasi oo ka kala kooban ama ka kala socda ururka jaamacadda carabta, ururka midowga Afrika iyo sidoo kale ururka Komisa. waxaa iyaguna jira shaqaale ay dawladdu diyaaristay oo ka kooban qaadiyo iyo shaqaale hoose oo caawinaya kuwaasi. doorashaduna waxay bilaabatay shalayto 9kii subaxnimo markii ahayd iyadoo soo dhamaatay isla xalay 9kii fiidnimo soconaysay sidaas ku soconaysay muddo ka kooban 12 saac. marka guud ahaan doorashadu si nabadgelyo ayay kusoo dhamaatay. wax caqabadaha oo halkaas ka dhacayna ma jirto marka laga reebo hal goob oo la sheegay inuu qarax ka dhacay. haddana dawladdu way daafadaysa qaraxaasi oo waxay sheegtay in aysan meesha qarax ka dhicin maadooyin kale oo meesha yaala qarxaan kadibna ay sababeen in ay waddo ka kaco halkaasi, iyadoo ay jirto goobo kale iyagana saaka xilliyada loogu talagalay inay ka bilaabato doorashadu ay ka yara dib dhacday sababo la jira xagga shaqaalaha oo soo habsaamay darteed. bal waxaad uga warantaa sida warbaahinta dalka Masar ay u tabinayaan doorashada iyo qaabka u dhacayso? dadar warbaahinta marka laga hadlayo warbaahintu waa kala laba oo warbaahinta dawladda oo wata gudaha maxalliga. marka taasi wax dawladda ay sheegto bay oranaysaa oo ma jirto taxriiraad kale ay sameynayso. hadda in kale waxa caalami ah oo ku sugnayd goobaha sida la sheegayna waxa joogay 680 wariye oo ajnabi ah, kuwaasi oo isugu jira wariyaal hore u joogay ama ugu sugnaa dalka iyo kuwa imika booqasho ku yimid doorashada yimid. marka wariyaashu sida la sheegay si waxay u tirinayaan warka inay tahay doorashadu si sax ah u socotay ilaa iyo xilligaasi wax caqabad ah oo ay sheegeen wariyaashu ama dhaliil ama jirto. hadda doorashadu si fiican ayay u sheegeen inay u dhacday. waxayna xusid mudan inay joogeen goobaha safaaradaha ajaanibta ee dalka ka mid yihiin kuwa Mareykanka. iyaduna waxaa xusid mudan in safaaradda Mareykanka oo kale ay ammaan kala dhacday qaabkii doorashadu u dhacday iyo qaabkii dadku u dhiibanayeen codkooda. waxaad u soo joogtay doorashooyin badan oo dhanka madaxweynenimada ah oo ka dhacay dalka Masar. markaad isbarbardhig ku samaysid doorashooyinkii hore iyo doorashada imika socota, farqi intee leeg ayaa u dhaxeeya? xagga isbedelada dhinacyo badan bay noqon kartaa. waxaa ka mid ah dadka codeynaya oo kale doorkan waxaa lagu sheegay inay codeynayaan 59 milyan, waa 60 milyan oo wax yar dhiman. dhankaas oo kale doorashooyinka hore aad bay uga yaraan jireen intan hadda lagu sheegay inay codeynayaan. iyaguna waxaa kaloo jirta xagga safafka iyo qaabka loo codbixinayo oo kale hadda ma jirto safaf dhaadheer, lama arkayo inta badan arki maysid iyo goobaha ay ka dhacayaan safaf aad u dhaadheer iyo ciriirtoona. waxaa la sameynayo goobuhu waa iska qaab cidlo oo kale weeye. kuwii hore halka ay ahaayeen goobuhu ay aad u bulshameeyeen. waxaa kaloo doorashadan ay dheer tahay inaan la sameynin wax fasaxa oo dugsiyada hoose unbaa la fasaxay. jaamacadaha iyo shaqaaluhu dawladdu caadi bay u kala soconayaan oo shaqadu toos bay uga socotaa. jaamacadaha iyo meel kasta waa caadi bay u shaqeynayaan. doorashada madaxweynenimada ee dalka Masar waxaa ka qayb qaadanaya oo kaliya 2 musharax oo ah madaxweynaha xilka haya iyo musharax kale. dadka shacabka marka aad u kurgashay ama dhax gashay sidee u arkaan arrintaasi? doorashada sida sheegtay waa 2 musharax oo kaliya ayaa ka qayb galaya oo mid yahay madaxweynaha dalka Cabdifataax al-Siisi iyo hal musharax la yiraahdo Musa Mustafa Musa la yiraahdo. marka labada musharax sida la sheegayo musharaxa kale waa musharaxan aad u miisaan cuslayn, doorashadiisuna aysan lahayn wax olole badan ama uusan samaynin oo marka suuqyada dhex marayso magaalada waxaad arkaysaa gooradaha iyo inay ku dhigan yihiin madaxweynaha Cabdifataax al-Siisi sawiradiisu ay ku dhigan yihiin. marka ma jirto ninka musharaxa kale wax saameyn ah ama miisaan ah uu ku leeyahay doorashada. dadka wax taxliiliyaana iminka kama hadlayaan doorashada yaa guuleysan doona. waxa laga hadlayaan waxa weeye nisbaynta leeg ama boqolkiiba intee ayuu Cabdifataax al-Siisi ku guuleysan doona doorashada. kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Qaalib oo saxafi ku sugan magaalada Qaahira oo khadka telefoonka igu waramayay.
imikana Beijing. Ammaanka goobaha muhiimka ee ku yaala caasimadda Shiinaha ee Beijing ayaa la xoojiyay, taasi oo keentay in la isla dhaxmaro warar sheegaya in sargaal sare oo Kuuriyada Waqooyi ka socda uu dalkaasi booqanayo, taasi oo ay suuragal tahay inuu yahay hogaamiye Kim Jong Un.